السلام عليكم. muuqaalkan maanta waxaan kaga hadlaynaa Elon Musk, ninka labaad waqti xaadirkan dunida ugu taajirsan ee aasaasay shirkadda lagu magacaabo SpaceX ee ah shirkaddii ugu horreysay ee gantaal hawada sare u dirtay gaar loo leeyahay welibana, iyo sidoo kale mulkiilaha gawaadhida Tesla lagu magacaabo elektarooniga ku shaqeysa ee wax batrool ah u baahnayn, iyo aasaasaas oo kale xataa shirkadda lagu magacaabo The Boring ee loogu talagalay inay ka takhalusto jaamka iyadoo isticmaalaysa godad waaweyn oo dhulka hoostiisa iyo sidoo kale nidaamka lagu magacaabo Hyperloop ee jaraya halka saac kaliya 1200 kilomitir ee loogu talagalay inuu daafaha dunida u kala safro. Haddaba waa kuma Elon Musk? muuqaalkan maanta in kaga hadlaynaa kusoo dhawaada muuqaalkan maanta. Elon Musk wuxuu ku dhashay South Africa waxaana dhalay aabbo South African iyo hooyo Canadian. Markuu da'da 17 sano gaaray, Elon Musk wuxuu u guuray dalka Canada waxaanu ka dhamaystay jaamacadiisa xagga markii dambena wuxuu soo wareegay jaamacadda Pennsylvania ee dalka Mareykanka waxaanu ka bartay economiga ama dhaqaalaha iyo physics-ka. Elon Musk dhalinyaradiisa wuxuu ahaa nin aad u asxaab yar keligii ah badanka, laakiin buug walbo gacantiisa kusoo dhaca ayuu akhriyay. da'da 12 sano markuu jiray, Elon Musk wuxuu sameeyay game lagu magacaabo The Blaster. gamekaasu markii dambena iibiyay uu ku iibiyay $500 xagaasaanu suuqa ganacsiga kasoo geli doona. sanadii 1999 Elon Musk wuxuu sameeyay website lagu magacaabo X.com oo markii dambena loo bixiyo PayPal. 2002 wuxuu ka iibiyay PayPal shirkadda lagu magacaabo eBay qiimo gaadhaya $1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka. markana Elon Musk lacag buuran ayaa jeebadiisa soo gashay. markaasuu bilaabay Elon Musk inuu ku taamo tegidda Mariikha ama Mars. markaa wuxuu tegay dalka Ruushka isagoo wata $21 milyan dollarka Mareykanka oo uu rabay inuu kaga soo iibsado 3 gantaal oo gantaalan hawada loo diro ah, laakiin Ruushyaanku way soo diideen inuu ku jeesjeesay. markaasuu bilaabay inuu ka fikiro maxaan anigu samaysan waay. waxaanu furay shirkadiisa SpaceX sameynaysa gantaalan hawada loo diro. sanadii 2005 ayuu markii ugu horreysay gantaalkiisa ugu horreeyay diray, laakiin nasiib darro uu soo dhacay. sanadii 2008 waxay ahayd sanadii u xumayd ee Elon Musk soo martay. waxay ahayd markii saddexaad uu soo dhacay gantaalkiisii Falcon. shirkadiisii SpaceX qarka u fuushay inay fashilanto, laakiin markan saddexaad gantaalka keliya ma soo dhicin ee waxaa soo dhacay 4 dayax gacmeed u waday oo dad iska lahaayeen, waxaanu khasaaray malaayiin dollar. fashilaada aadka u weyn Elon Musk soo wajahday darteed dadku waxay wada sugeen inuu Elon Musk isdhiibo ama uu ku dhawaaqo fashilaadiisa oo uu dhaho 6 sano dadaalka ahayd ee aan soo waday waxa kusoo gabagaboobeen fashilaad. kamana wacni shirkaddii Castellar ee bilooyinka horunyaduna fashilantay, laakiin Elon Musk muu dhihin saas oo mar kale ayuu haddana ku celiyay. bishii September 2008 shirkadda SpaceX iyo Elon Musk waxay ku guuleysteen inay gantaalkooda u horreeyay hawada sare u diraan, waxaana xidhan iskoor ah shirkaddii ugu horreysay ee gaar loo leeyahay ay ku guuleystay inay gantaal hawada u dirto. haddana mar labaad waxay ku guuleysteen shirkadda SpaceX 2012 gantaal ay hawada u diraan inay u soo celiyaan dhulka si nabad qabta 100%. oo waqtigii hore gantaalaha hawada loo diro hawada lagu tuuri jiray, laakiin SpaceX iyo Elon Musk isagoo nabad qaba 100% ay dhulka ku soo celiyeen. waana iskoor cusub oo iyaga u xidhan. haddana 2020 sanadana ku jirno, shirkadda SpaceX iyo Elon Musk waxay ku guuleysteen inay 2 nin oo ka socda wakaaladda NASA ay raaciyaan gantaalkoodii Falcon-kii 9aad, waxaana ku baxday qiimo kaliya $100,000. Elon Musk soo kale wuxuu soo galay suuqa gawaadhida. suuqan gawaadhida marka laga hadlayo way fududahay inaad soo gasho, laakiin way adag tahay inaad horumar ka samayso. oo tusaale ahaan shirkaddii ugu dambeysay guul ka samaysay suuqan gawaadhida waxaa shirkadda Chrysler oo la aasaasay sanadii 1925. Elon Musk laakiin suuqan uu soo galay waxaanu maalgashtay 2004 shirkadda lagu magacaabo Tesla. waxaana soo saareen gaadhigoodii u horreysay ee ku shaqeynaya charge wax batrool u baahnayn sanadii 2007 iyo 2008. Tesla Roadster waa run inaanay wax batrool u baahnayn, laakiin qiimaheeda ayaan sahlanayn. sanadda 2020 ku jirno, Tesla Roadster waa shirkad gawaadhida guuleysatay, waxaana laga isticmaalaa daafaha dunida oo waxay leedahay meelo gaar ah oo baytariyada gaadhiga laga dabaysto. Elon Musk oo jecel degdega, sanadii 2013 wuxuu aasaasay nidaam Hyperloop lagu magacaabo oo tuubooyin waaweyn dhex maraya oo loogu talagalay inay kala safraan dadku, laakiin xawaare aad u dheereeyana ku soconaya oo 1200 kilomitir saacadiiba jaraya. oo tusaale ahaan Muqdisho iyo Hargeysa daqiiqada kaliya u kala soconaya.
runtii waa arrin cajiiba, laakiin hyperloop samayntiisa Elon Musk ku guda jira weli, waxaana la rajeynaya 2030 in si fiican loo isticmaali doono. maalin maalmaha ka mid ah Elon Musk wuxuu galay jam magaalada Los Angeles kadib caajis badan ayaa qabtay. waxaanu ku fikiray samaynta godad waaweyn oo gaadhiga gebigiisa intuu hoos u qaado dhulka hoostiisa marinaysa, kadib marka jaamka dhaafso kor soo saarayso bannaanka ku soo celi. fikirkiisina uu ka dhameeyey oo sanadii 2016 ayuu furay shirkad lagu magacaabo The Boring ama caajis. waxaanu bilaabay soo kale inuu godad waaweyn dhulka hoostiisa ka qodo magaalooyin ka mid ah dalka Mareykanka. 2016 wixii ka horreeyay shirkadiisa The Boring ee cusub waxay hoos tegi jirtay shirkadda kale SpaceX, laakiin intii ka dambeysay 2016 shirkad madax bannaan bay noqotay. shirkadiisa The Boring runtii caajis ma haddii mar jaamka ka takhalusayso. Elon Musk soo kale wuxuu ku taamaya samaynta memory maskaxda bini'aadamka la gelinayo oo ka dhigayo bini'aadamku inuu fikiro qaab ka badan kombiyuutarka. dadka badankiisu ma soo dhowaan oo waxaa u muuqata arrin waali ah. mar haddii maskaxdana memory la gelin karo, waxaa khasaba inay bilaabmi doonto meel laga kantaroolna ay jiri doonto. markaa bini'aadam ha ku kantarool waa soo kale Elon Musk wuxuu sheegay in bini'aadamka in loo raro Mars ama Mariikh ay qaadan doonto 40 sano ilaa 100 sano inta u dhaxaysa. waxaanu ku tala jiraa hadda samaynta gantaalihii dadka kor u qaadi lahaa ee u soo celin lahaa dhulka iyagoo nabad qaba. Elon Musk maalin dhaweed wuxuu noqday ninka labada adduunka ugu taajirsan, waxaana ka horreeya Jeff Bezos ninka lagu magacaabo shirkadda Amazon iskale keliya. mar la weydiiyey Elon Musk caqli badnaantan xageed ka keentay iyo dadaalkan fara badan, wuxuu ugu jawaabay wax akhris fara badan. soo sheegnayna Elon Musk wuxuu ahaan jiray dhalinyaradiisa nin keli ah oo asxaab yar buug walba gacantiisa kusoo dhacana akhrin jiray. muuqaalkana maanta intaas ku eegay, waxaan rajeynaya inaad ka faa'iideen. fadlan hadduu ku cajabi subscribe saar lana sii wadaag asxaabtaada. wassalaamu calaykum.